kulan ballaaran oo isugu yimaadeen xildhibaano salaadiin aqoon-yahan iyo waxgaradka banka arooriye magaalada Burco ayaa habeennimadii xalay hotel Loore magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxaana cuqaashan iyo waxgaradkan eedeyn ballaaran u soo jeediyeen wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland taas oo ku eedeeyeen in wasaaraddu ay doonayso inay banka aroori ku xanaanayso xoolaha ka yimaada gobolada koonfureed dalka Soomaaliya waxaanay waxgaradkani cuqaashan iyo xildhibaanadani sheegay inaanay haba yaraatay wasaaradda xanaanada xooluhu seeri karin banka arooriyada oo aanay wax ka weydiin dadka reer guuraaga ee degan deegaankaasi ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Maxamed Muuse Cune oo ka mid ah salaadiinta gobolka Togdheer iyo Suldaan Ismaaciil Sikaawi iyo ugaaska guud ee dhalinyarada Soomaaliland waxaanay tilmaameen inaanay marnaba aqbali doonin in wasaaradda xanaanada xooluhu iska saarato banka aroori dadka waxa halkaas ugu keenay waa dadkii reer miyiga badiisa ka fadhiya ee deegaanka magaalada aroori iyo baliyada ee xoolo dhaqatada ahaa ee ku dhashay weeyaan dadka halka fadhiya badidiisu anana odayaashii dadkaas baan nahay ragayga halka fadhiya waxaad ogtihiin maalmahan ba in la hadal hayay oo halkan ay maqlayseen ama in muddaaba waxaa la seerayaa oo la xidhayaa aroori oo loo xidhayaa dad gaar ah waxaan ka digaynaa halkan uga digaynaa nima dadka wada ee ku hawlan mashruuca ku hawlan inay aroori ay yiraahdaan aroori ay ka dhigaan seero dad leeyahay aroori waxa weeye waa la yaqaan aroori waxa weeye taariikh leedahay imaka waxa muuqata in dad loo seerayo meeshii dad in loo seerayo xoolo loo seerayo laakiin dad loo seerayo gaar ah iyo ganacsato taasuna wax la aqbali kara maaha waxaan ka digaynaa dawladdu arrintan dib uga laabato si degdeg dib uga laabato oo aanay arrintaas isku dayin inay fuliso horena waa ogeedeen dad baa lagu laayay horemaad baa ka dhacay oo lagu laayay oo dad muwaadiniin lagu laayay walaaliga dawladda Soomaaliya maxay naga galayna wasiirada Soomaaliya inuu diray misalka bay inuu diray waxaan leenahay ariga Soomaaliya lagu nasin maayo وسفيرك سعودي قال الله حري ماي شريف حسن الله حري ماي أروري وحيلا متاي وحوي وداغين داغين وحوي إلا كيدية وكل وقت يدوق الله كيدية داغينك وحي كدرت الشعب تزوين أنا كدرت طيب إيش كلا كدرت ما وحنقول له قالوا تجي بالحويلة وحلا بالحويلة هكذا ما الحويلة وسيلة هذا بدل دي إذا يضلوا كدرنا يا جماعة نطرد mar haday dalkii dilaayaan mar haday lacag doonayaan mar haday meel walba meel iibinayo dawladda waxaan uga digaynaa odayaasha hore la qabaayo waxaan uga digaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa meesha dad baa ku dhaqan dad baa iska leh hadii la seeranayo hadii la beeranayo hadii la gubay iyaga amarkooda iyo ogolaashooda ku soconaysa iyadoo mid kaliya bay ku leedahay xaq waxa ugu leedahay wararkan anigu aan qaate dawladahaan aduu meesha kala seera ka dhigo oo bedel hadii uu haysto waxna wasaarano indaba diidayso waxaana sidoo kale kulankaasi ka hadlay cuqaal odayaal iyo waxgarad u tiro badan oo iyaga oo sheegay inaanay marnaba suurtagal ahayn in xukuumadda Axmed Siilaan ay saarato banka aroori dambeyntii waxaa kulankaasi soo gabagabeeyay xildhibaan Cabdikariin Maxamed Cabdilaahi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco kaas oo ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay ilaaliso nabadgelyada gobolkani Togdheer raysama jirto shicibku wuu sameeyay ama wasiiraha ama madaxweynaha أما مواطن هو شرعي ما هي شرعي وقتي شرعي هو لوسي أنا وصول شيء لكن عندي كم مسؤولية هاي المشاريع كانت قضايا لما بروحها يعني أنا وحبك يسألني قرأت كله تجي شرعي كها عندي كم مسؤولية هاي إنه حكم الله يعني إلا يمان كنا لما كين سيدو شيء سلطان سكاوي كنتي تصبح مقطع وكنتي مقطع ده إنه وسيرة حكومة ما تجرتها داعي شرعي كسر يا مرمو غايس إفلت سكاها ودتك وقيمي عبد الله ظاهر وحا كنت هالي إلا أنا بيك شيء من ورقيته كتالا بوسي تاريخ كتالا هو دبوينه حيارة كتالا إنه أروري حد غيره وحلا يلاحظه هولين غرام وحلا يلاحظه وكلمة إنجليزية وحلا يلاحظه هو حرقول وبرواقادا محمد شبكة عالمية ضد مدر نيوز مقالة برعو